Bismillahir Rahmanir Rahim. Duhur wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka idaacada kulan duhurkaan idinaysa waxaa kamid ah dawladda iyo Hirshabeelle oo lagu eedeeyay in ay dayaceen shacabka degmada Jalalaqsi meydka wiil dhalinyaro ah oo laga helay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir xilliwaano ka hor yimaaday ansixinta golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waa duhurnimo axad ah taariikhdu waxay ku beegan tahay 6 bisha Agoosto sanadka 2017 warkaasi oo faahfaahsan duhurnimadan waxa inoo haya wariyaheena Muxyidiin Nuur Cadow. mahadsanid Qaasim Maxamed Xasan. duhur wanaagsan dhageystayaal warkii oo faahfaahsan. xildhibaano ka hor yimid ansixinta golaha wasiirada Koonfur Galbeed waxa ay soo taraya xildhibaanada iyo siyaasiyiinta diidan ama dhaliishan golihii wasiirada ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. in ka badan 70 kamid ah baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la sheegay inay aad uga soo horjeedaan ansixinta golaha wasiirada isla markaana kulamo gooni ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin iyo waxgarad taageersan go'aanka xildhibaanada waxaana kamid ah Ugaas Axmed Xaaji Xasan waxaana uu sheegay in go'aanka xildhibaanada uu yahay midkii loo baahnaa. dawladda iyo Hirshabeelle oo lagu eedeeyay inay dayaceen shacabka degmada Jalalaqsi sida warkaan uu ku faahfaahinayo Qaasim Qanciye. maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa eedeyn kulul u jeediyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle taas oo ku aadan wax qabashada bulshada ku nool degmadaasi. gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Cabdulla Fiidow oo wareysi siiyay kulan network ayaa ku eedeeyay dawladda iyo Hirshabeelle in aysan wax ka qaban baahiyaha dhinaca caafimaadka daryeelka. meydka wiil dhalinyaro ah oo laga helay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir sida warkaan markale uu noogu eegayo wariyaheena Qaasim Qanciye. wararka aanu ka helayno qaybo kamid ah degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxay sheegayaan in xeebta degmadaasi laga helay meydka wiil dhalinyaro ah oo ay baddu soo tuftay. taliye ku-xigeenka saldhigga degmada Kaaraan Xuseen Badmaceeye oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in wiilka meydka da ahaan lagu qiyaasay 20 sano jir isla markaana badda ay ka soo tuftay nawaaxiga Kawaanbari ee magaalada Muqdisho. waxa uu intaasi ku daray hadalkiisa in si fiican aan loo aqoonsan karin meydka wiilkaasi kadib markii uu badda muddo saacado ah ku jiray. warkii oo aad kala socoteen idaacada kulan ee magaalada Muqdisho dhageystayaal duhurnimadan waa naga inta warkiisa xigaanta aan kulmi doono anagoo isku duubaanu nabadgelyo.